waxaan salaamayaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ergada ay dooratay intii ii codaysay iyo inta ii codaynba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa duubabka dhaqanka murashaxiinta oo ugu horeeyo walaalkay maxamed axmed culusow iyo dhammaan waxaan kaloo mahad celinayaa xildhibaan hadal kuma jiro ciidamada amniga iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bacda salaam anigoo ah yaasiin cabdullaahi maxamuud waxaan si kalsooni ku jirto ugu shaqayn doonaa uguna adeegi doonaa kursigan hoob 67 ergada i dooratay oo aan ogahay meesha ay ka yimideen iyo meesha ay igu codeeyeen inkastoo ay ka soo jeedaan kana soo wada jeegno dowlad goboleedka galmudug laakiin waxaan meeshaas ka maqnayn in deegaankii kursigaanu ku lambareysnaay iyo kuraasta kaloo dhiman inuusan gacantayna ku jirin waxaan qorshahayga ku darsan doonaa ilaahay idinkiis lana kaashan doonaa dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka in deegaankaasu uu xur noqdo hadda ka hor waxaan ka baqaya waxaan is lahaa ergadu amay baqaan haddaad tiraa deegaanka idin xoreeya hallay doorto laakiin hadda kalsooni badanaan ku qabaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ii fududeeyo aniga inta ila midka ah ee igala soo jeedo deegaankaas aan xurta ahayn inaan waqti badan gelinno sidii loo xurey lahay deegaankaas 4 sano kadibna aan uga soo geli lahayn doorashada walaalkay ila tartamay wuxuu ugu leeyahay inaan ugu shaqeeyo ugu adeego haddii uu guulaysan lahaa waan ugu hambalyay lahaa waana kula shaqay lahaa asiguna wuu mahadsan yahay inuu iguna hambaliyeeyey ballanna qaaday inuu igula shaqaynayo waxaan leeyahay marka waa mahadsantihiin waxaan samayn doonaa fadhiyo ka duwan fadhigan waqti badanaa meesha ku jirnay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh